السلام عليكم سودواada mar kale kuna sodwaada muuqaal kale cusub muuqaalkan maanta waxaanu ka eegi doonaa ninkan oo tagaya ama soo booqanaya qabiil dadka cuna kaasoo lagu magacaabo Bawsi tribe هل تأكل البشر؟ qabiilkan oo degan gobol fog oo la yiraahdo West Papua oo ka tirsan dalka Indonesia hadaba qabiilkan waxa uu caan ku yahay inuu gaarsado masaska iyo xaaska iyo sidoo kale madaxyada dadka islaayana mabcadowgooda ah maadaama gobolka West Papua ay wada degan yihiin qabiilo kala duwan dagaalo fara badan ayaa hore uga soo dhaxeeyay qabiiladan oo yeeshooda hadaba waxay cuni jireen hilibka dadka caadiga ah markay ka guuleystaan cadawgooda hadaba maanta ninkan waxa uu soo booqanayaa gobolkan iyo dadka ku nool iyo qabiiladu sida ay imka u nool yihiin sidoo kale waxa uu bilowga muuqaalka ku sheegaya inuu meeshan u tagay soo ogaado in dadkani wali ay cunaan hilibka dadka iyo in kale hadaba ugu horreyn ninkan waxa uu socdaalkiisa ka bilaabayaa xeebo kamid ah xeebaha Indonesia halkaas oo uu doonka soo raacayo si uu u tago kaymaha ay ku nool yihiin qabiilkani isagoo uu wehelnay nin kale oo cadaan oo daan loo yaqaan oo dhulkan isagu si fiican u kala yaqaana si aan isaga laftirkiisa loo cunin ninkaasina waxa uu ku sii xidhay nin kale oo isagoo Indonesian qabiilkan ka tirsanba kaasoo raaci doona safarka ninkan dambe oo abihi kamid ah dadka hilibka cuna ama cannibaliska loo yaqaano ninkan cadaankana marka koobaad ay wada kulmaan waxa uu kula kaftamayaa labadiinan mid baan maanta cuni doonaa waayo abahay si fiican u tababaray sida hilibka loo cuno kadib doonta ay soo raacayaan iyagoo 2 saacadood ma soo soconaya si ay u gaadhaan meesha ay rabeen kadib waxoogaa markay soo socdaan waxay dhexda ka qaadayaan qaar kale oo ka tirsan qabiilkan maadaama dadkan xadaarada adduunku gaadheen inkastoo ay qabiilo ku nool kaymaha yihiin haddana sidoo ninkan sheegayo dadkan ay si qaadayaan waxay isticmaalayaan TikTok ninkan wuxuu oranayaa muuqaaladan short formka ay adduunka oo dhan gaadheen tan baa cadayno ah hadiiba mar ay isticmaalayaan dadka qabiiladani ee kaymaha ku dhex noolay inta kadib way soo soconayaan haddana waxayna soo qaadayaan oday kale oo ka tirsan qabiiladan madaxna u ah kaasoo ka caawin doona inay caawa soo ugaarsadaan iyo xaasna ay soo qabsadaan inta kadib way soo dhaqaaqayaan waxayna imanayaanba ay kaga soo degayaan doontii meeshii kaynta ahayd ugu horreyntan habeenkiisa ay meesha u degaan waxay samaysanayaan meel ay seexdaan maadaama meesha xayawaano fara badan ay ku nool yihiin meel aad u hoyataa haddii aanad haysan xayawaanadaasi ay ku cuni karaan nimankan cadaanka iyagu way baqanayaan dadkan waxba kama qaadayaan iyaga waxaasi kaymaha nooc walba xayawaanada ka tirsan way joogaan masaskii baa laga helayaa iyo xaaskii hangaraliha ama scorpionka baalka loo yaqaano nooc walba oo xayawaana waa laga helayaa halkan nimankan cadaankana iyagu way ka baqanayaan xayawaanadan bir rabaan inay meel ay ka galaan ninkan ayaa hadaba sheegay inta ayna kaymaha ugu gaadhsi tegin inuu bal sii waraysan doono raggan oo uu ka waraysan doono taariikhdooda iyo sida ay ku noqdeen dad hilibka dadka cuna kadib waxa uu waraysan doonaa ninkii la socday isagoo Ingiriisiga sida fiican u garanayay laakiin aabihii ahaa dadka hilibka cuna isagoo la sheegay in aabihii uu ahaa qof aad cadow u ah amaba aan waxba u nixin hilibka dadkana waxa uu arkay wax la cuno oo kale ayuu oranayaa si aan anagu noolaano waxaana ku qasbayay buu oranayaa deegaanka iyo sida ay u noolaayeen dadkii ku hareeraysnaa qabiiladu way islayn jireen ayuu sheegayaa kadibna markay kala guuleystaan kuwa laga guuleystay hilibkooda waa la cuni jiray dadka qaybaan ku kala nool ayaana kasii kala duwan ninkan waxa ka soo jeedaa gobolkan Papua ee qabiilada faraha badan la ku noolaayeen qaybtiisa buuraleyda ama Highlands of Papua qabiilka yaali la yiraahdo ay ka soo jeedaa qabiilkan ka soo jeeda waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyay ee cannibalism aha ama dadka cuna ninkan wuxuu sheegayaa sidoo kale in cannibalismku uu joogsaday 1980kii ninkan cadaankana wuxuu weydiinayaa sidee dadka cuni jirteen waxaan oranayaa dadku waxay la mid ahaayeen waxyaabaha u gaarsano sida xayawaanka u gaarsano ma dadkan u gaarsan jirnay ayuu oranayaa oo cuni jirnay hilibkooda isaga laftarkiisana ninkan cadaanka wuxuu qoranayaa adigu cannibalism yaa tahay waxaan ku oranayaa ha haddii aad khiyaamayso ama aad wax igu samayso waan ku cuni karaa ninkan maraykanka kale inuu taagaya markuu ku yiraahdo waan ku cunayaa intaan ku karsado maybe if you be training me and then maybe if I tried then I don't know what happened. Maybe you'd be cannibal too? Oh yeah, I see human is something to be eaten, so I can kill anybody and then I eat. I cook, I eat. isagoo su'aal kale si weydiinay waxaan qornay hilibka dadku sida uu dhadhamaa wuxuu oranayaa sida yaxaysko kale waa hilib aad u jilicsan oo la cuni karo dhadhan la oranayaa waliba uu dhanaanyi abahay ayaana ay sheegeen hilibka bini'aadanku hilib aad u macaan yahay anigu wali maan cunin boori laakiin waxyaabaha kale uu igu sheegay ayaan cunay sida korayada iyo yaxaaska hilibka bini'aadanka dhadhankiisa oo sheegi kara oranayaa habar qaban imikadan wuxuu taagan yahayba waxaan rabaa inaan dhadhamiyo hilibka bini'aadanka laftarkiisa waxa la sheegay wuu oranayaa in Afrika lagu cuno $1 laga siinayo madaxa qofka aniguna waxaan rabaa in halka tago oo abahay sidoo dhadhamiyo kala uu dhadhamiyo oranayaa maadaama ninkan cadaanka markuu weydiiyay oo ku yiraahdo qabiilkiin wali miyuu cunaa hilibka imika uu sheegayo in waqtigaas ay ugu dambeysay dadkuna ay imika ilbaxeen cid hilibka dadka cuntana aanay halkan imika ka jirin sida darteed isagu uu rabo inuu dhadhamiyo qaabka uu dhadhamiyo hilibka dadku maadaama aabihiiba cunay kadibna uu rabo inuu tago Afrika oo maruna ay tahay riyadiisa kadib ninkan sidoo kale waxa uu ka sheekeynayaa sidii bariga hore qabiilkiisu ay u cuneen dadkii cadaanka ee missionaries-ka ee diimaha faafinayay mid goboladan isagoo sheegay in mid kamid ah raggii saaxiibada la ahaa aabihii ay qabteen nin cadaan markii ay diyaaradaha ku soo degeen ay garan waayeen waxaan ay ahaayeen kadibna ay yiraahdeen dadkan cadaan hilibkooda ayaan dhadhamin doona bal sidoo yahay kadibna ay qabteen nin cadaan oo ay dileen ay cuneen ninkan cadanayntu dhaatay uu qoranayaa imika miyaad cuntaan dadka cadaan laakiin wuxuu qoranayaa may imika uu iska diinay waan raali gelinaabay imika
naga raali noqdo ayaan ku nidhahnaa buu yidhi imika dadka cadcad wakhtigaan waxaan rabnay inaan dhadhamino hilibkiin bal sida uu dhadhamayo maadaama dad madmadowon aan cuni jirnay intaa kadib ninkan waxa uu sheegaya intaanu waraysan oday laftarkiisuba hilibka bini'aadanka dhadhamiyey oo cunay in ugu horreyn uu eegi doono meeshii loo dhisayay inay dhammaystirmatay kadib wuxuu arkayaaba in la dhammaystiray oo xagga sare wax lagaga daday roobkana ay si fiican imika uga celinayso kadib habeen bay noqonaysaa meesha ayna hoos gelayaan waxaan u waraysanayaa nin dadkan ka mid a oo laga cabsanayaba kamarada ku soo dhaweynayaa kadibna ninkan caddaanka wuxuu raacayaa ninkii kale iyagoona ugaarsi tegaya caawa ninkanna wuxuu sheegaya in xayawaanada noocana ay soo qabsan doonaan maynaga hubtaabu ka odhanayaa imika inaanan wax bilaadan soo ugaarsanin waxaan odhanayaa may bilaadan imika lama ugaarsado kadib kaymihi ayay gelayaan laakiin kaynta waxbay kasoo waayiyaan waxay raacayaan doonyar si ay yaxaas soo ugaarsadaan webiyadiina waxay ku dhex arkayaan yaxaasyo ku dhex jira laakiin maadaama roob fara badan kusoo da'ayo way iska soo noqonayaan yaxaasyada qaar yaryar oo ciyaalana way iska deynayaan oo ma dilayaan iyagoo waxba soo ugaarsanaya inay iska soo noqonayaan kadib meeshii markay kusoo noqdaan wuxuu arkayaaba ragga oo tiktok iska isticmaalaya midh fiideo iyo kusoo noqnoqonayo luub loo geliyey ayuu iska daawanaya ilaa maanta oo dhan kadib habeenkii markay wax yar cunaan way iska seexanayaan roob baana kusoo daayay ninkii habeenkii oo dhan qoynaya subax ayayna soo toosayaan iyagoo sheegay in wax hurdaayna xalta hore seexanba ninka xad dhabarkaaba la wada casaynaya si baa la cunayeen dhabarka casaanaya intaa kadib ninkana waxaa waraysan doonaa ninkii meesha madaxda ka ahaa odaygana waxaa weydiinaya adigu weligaa ma cuntay hilib dad laakiin wuxuu ka odhanayaa may qabiilkaygana intuu dadka laaya ayuu yidhi ayuu isagu ma cuni jirin wuxuu siin jiray qaar kale oo buuraha degan odayga waxyaabo fara badan ayuu ka waraysanayaa waxaa ka mid a wuxuu ka odhanayaa ka waran sidaa idin saamaysay caalamkan casriga imka noqonaya isagoo sheegay inay aad uga faa'iidaysteen marka hore kaba iyo waxay kaymaa ku dhex maraan may haysan laakiin iminka ay caalamka la jaan qaadayaan oo kaba ay isticmaalayaan sidoo kale maryo caadiya ay xidhanayaan sidoo kalena ay aalada casriga isticmaalayaan sida tiktoka intaa kadib way dhaqaaqayaan waxayna aadayaan si ay usoo ugaarsadaan qadadii ay cuni lahaayeen doofaar ay soo ugaarsanayaan iyagoo raggana haystaba ay ka caawisay inay soo ugaarsadaan kadibna ninkan caadi u soo dabagelayaa ninkii la raaciyey ee ugaarsanayey ninkan la socda ayaan weydiinaya ilaa imse sana ay wadeen isagoona uu sheegaya in millions of years ay wadeen waxaa keliya imika kaga duwan yahay ugaarsiga uu yahay in imika ay isticmaalaan aydaas oo markaa yaryariin inta ay tababaraan ay ugaarsiga u isticmaalaan waxaanu sidoo kale ninkana sheegayaa in dadkan ay dowladdu ka codsatay inay caalamkan casriga noqonaya kusoo biiraan oo gurya ay ka dhistaan xeebaha agtooda kadib mid ka mid a ayada ay wateen ayaaba dhaawacmaya isagoo ugaarsiga ku jiro la socda kadib way iska soo soconayaan laakiin waxba way waayayaan iyagoo dhul fara badan soo maraya iyo geeda dhulka ku dhacay oo la dulmarayo sidoo kale marka dambe siday usoo socdaanna ninkii kale ingiriisiga garanaya qabiilkan ka tirsanaa ayaa wuxuu helayaa midho suna ninkan ayaanu tusaya waxaanu ka odhanaya haddii aad cunto waad sumoobaysaa midhahan ninkan caddaankana wuxuu sheegay in maalmaha qaar ayna waxba soo qabsan maragni markay ugaarsi tagaan sidaa daraadeed kalluun yar oo meeshuu siyaallay soo qabsadaan bay iska cunayaan mar labaad markay kusoo noqdaan meesha ay deganaayeenna ninkan wuxuu arkayaaba odayaal waaweyn oo tiktok daawanaya isagoo sheegaya maskax dawqi xataa raggan uu soo gaadhay ugu dambayntana ninkan waxaa isku keenayaa odayaasha qabiilka isagoo meesha soo fadhiisinaya si uu waraysto waxyaabo fara badan ayaanu ka waraysanaya odayga ugu horreeya waraysanaya wuxuu weydiinayaa weli ma dhadhamse hilib bilaadan odaygana maadaama da'diisu weyn tahay wakhtiguu yaraa inuu soo gaadhay baa macquula inuu hilib dad cunay waxaanu ka odhanayaa haa waan dhadhamiyey laakiin wuxuu sheegaya inay ahayd 60 sano ka hor tana la micnaa odaygani aad u weyna imanka da'diisu wax yar bay ahayd markaa uu dhadhamiyey waxaanu odhanayaa hilibka bilaadanku aad buu jilicsan yahay isagoo sidoo kale weydiinaya sanadkii uu joojiyey qabiilkiisu inuu cuno hilibka dadka waxaanu sheegayaa 70 ama 80 sano ka hor sidoo kale isagana wuxuu ka odhanayaa weligaa qof ma dishay waxaan odhanayaa may isagoo sidoo kale weydiinaya ka uu doorbidaya inuu magaalo weyn ku noolaado iyo inuu kaymaan ku noolaado waxaan odhanayaa ma rabo inaan magaalo weyn ku noolaado waxaana iga fiican inaan qabiilkayga iskala joogo maadaama qabiilkaygu iminka xaalad fiican ku jiro oo aanu midaysannahay dagaaladii iyo waxayna naga joogsadeen sidoo kale ninkan waxau odaygan weydiinayaa waxyaabaha iminka cusub ee adduunka lagu faafinayo sida khaniisnimada iyo waxaan odhanayaa inankaygu haddii uu khaniis noqdo waan dilayaaba ninkan odaygan wuxuu sheegayaaba in maraykanka uu maalin gooniya u leeyahay oo khaniisiinta ay ka dabaaldegto odaygan uu qoslaya uu yaabayaaba uu qaadan waayayaa waxaanu ka odhanayaa siday macquul tahay inuu nin damco dabcan sida aynu halkan ka arki karno xataa qabiilada cawaankaaba kala garanaya wixii saxda iyo wixii qaladkaa iyagoo xataa aan diin haysan reer galbeedka iyo gaalada xubna waxay faafinayaan wad aragtaan sidoo kale wuxuu weydiinayaa bal ka waran gabadhaada ma u goorin lahayd nin caddaan ayuu ka odhanaya waana qoslaya wuxuu odhanaya waa iska caadi kadibna oday kale oo da'diisu weyntahay ayuu waraysanaya waxaan weydiinayaa waxyaabii weydiiyey ninka hore oo kale uun laakiin odaygan sidoo kale wuxuu weydiinayaa su-aashuu marka hore weydiiyey ahayd weligaa qof ma dishay isagoona ka odhanaya haa waan dilay waayo waqtiyadaa hore marka lagu soo weeraro waa isdifaacaysa ayuu odhanayaa marka gabalku dhaco ayaanu u dhuuman jirnay oo aanu weerar ku qaadi jirnay buu odhanayaa sidoo kalena wuxuu weydiinayaa mise xaas baad leeday wuxuu ka odhanayaa intaan noolaa 4 xaas baan soo guursaday 3 baa iga dhintay laakiin imika mid baa i nool ciyaalkiisuu sidoo kale weydiinaya wuxuu odhanayaa 20 ciyaalan dhalay
sidoo kale marka dambena waxaa wareysanayaa nin kale oo isku sheegay daadiisu inay 23 jir tahay isagana wuxuu ka wareysanayaa waxyaaba kayntiyaha ku saabsan isagoo ka odhanay sidaad u nooshahay waxaan u odhanayaa beer baan fashaa midhaha iga soo baxana waan iibiyaa sidoo kale kambani kale oo macdanta qodana oona shaqeeyaa buu odhanayaa sidaasaan lacagta ku sameeyaa isagoona weydiinaya sidee ayuu uga soo noqdaa marka uu taga meesha macdanta laga qodayo kadibna uu qabiilkiisa ugu soo noqdaa waxaanu sheegaya inuu 3 cisho soo lugeeyo waanu la yaabayaa qof 3 cisho soo lugeynaya ninkan cadi sidoo kale wuxuu weydiinayaa imse xaas baad leedahay isagoo sheegay inuu hal xaasi leeyahay ninkan cadina wuxuu ka odhanayaa bal ka waran diyaar ma tahay inaad gabadh kala guursato laakiin ninku wuxuu odhanayaa may taasi waa dembi maadaama diinta kiristanka haystaan laakiin ninkan kale shaarka casi ag fadhiya ee isagoon ingiriisiga garanaya ayaaba qosilaya waxaan odhanayaa jasiiradan aan ku noolnahay ee west babua loo yaqaano waa dhul ballaadhan waxaan u baahan yahay dad fara badan sidaa darteed waa in xaasas fara badan la guursado ugu dambeynna wuxuu kusoo xidhayaaba su-aasha caadiga u noqotay ninkan caddaanka ahayd weligaa qof bilaadan ma cuntay laakiin wuxuu ka odhanayaa may waalidkii baa cunay intaa kadibna meesha way iskaga soo noqonayaan muuqaalkan halkaas ayuu ku dhammaanayaa haddaba saaxiib yaal haddaad ka hesheen muuqaalkan fadlan like saara sidoo kale channelkana subscribe saara aad baad mahadsantiin